war degdega daawadayaal madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ugu hanjabay Iiraan inuu weerarayo iyo Iiraan oo tiri idinma sugi karno askarina idinkama reebayno ee fadlan si degdega noo soo gaara waxaan idin hayaa warkii ugu dambeeyay ee arrinta ku saabsan iyo waliba maxay in Kuwait and Bahrain. And so they went for the Ali Al Salam air base in Kuwait, very important air base, and even more importantly, Al Jafir in Bahrain, which is the head. weeraradii xalay dowladda dalka Iiraan ay ku qaaday markaas ligada military ee Mareykanku ku leeyahay Bahrain iyo Kuwait oo kuwa ugu muhiimsan sida warkaanba aad ku arkaysaan Strait of Hormuz wixii ka dhacay saacadii la soo dhaafay iyo cidda maamulkeeda gacanta ku haysa ayaan muuqaalkan laftigiisa kugu soo gudbin doonaa maxaa kaloo dunida ka cusub Erdogan madaxweynaha dalka Turkiga ayaa muufadiisu maraqa ugu jirtaa kadib markii uu ku guuleystay wixii uu doonayay iyo shirkii NATO oo gabi ahaanba soo gabagaboobay Abbas Arachi wasiirka arrimaha dibadda oo Donald Trump u jawaabay laftigiisa 55 mirar ka hor xaaladdu caawa xaqiiqatan waxaynu dhihi karnaa waa bariga dhexe dowladda dalka Ruushka ayaa dhankeeda dab yarshidaynin kadib markii ay wafdi heer sare ah oo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov uu hogaaminayo Sergey Lavrov uu hogaaminayo ayaa haatan Afrika safarkaas socdaalkaas ku jooga waxa uuna haatan soo gaaray dalka Niger oo ah dalka saddexda ee markaa ku midoobay gobolada saaxil ee markaa ka goostay kuwii kale ee markaa Nigeria iyo Ghana ay hogaaminayeen oo ayagu dantooda aan ka dhex arkinin Burkina Faso iyo Ibrahim Traoré ay hogaaminayaan waa maxay fariinta uu wado maxaa safarkiisa haatan ku soo beegay waynu eegi doonaa qaybaha dhexe ee barnaamijka taariikhdu waa 8 bisha 7 sanadka 2026 waxaad daawanaysaan Brit Somali TV feed wanaagsan Soomaaliya meel kastoo dunida ka joogta ku soo dhawow abka lacag dirista degdega ah ee TasaPay kani waa TasaPay lacag diris degdegsiinta damaanadiisa ammaano dadku wuxuu ku jeclaaday daacadnimada wanaagsan iyo doorku ka qaatay baahiyaha lacag isu dirista dalka iyo dibaddiisa haddii aad ku nooshahay UK ama Yurubta kale ee aad doonaysid inaad lacag u dirto ehelkaaga iyo asxaabtaadaba TasaPay waa abka kuu fududaynaya inaad si degdeg ah u dirto lacagta aad rabto lacagtu waxay si toos ah isla markaba ugu dhacaysaa moobilkooda ama ban akoonkooda si degdeg ah ammaano ah oo kalsooni buuxda leh kala soo deg hadeerba Play Store-ka ama App Store-ka moobilkaaga adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 afargees isku soo noqod wanaagsan daawadayaal mar kalena feed wanaagsan aynu ku bilownay marka hore waxaynu idiin soo gudbinay muuqaalkii kan ka horeeyay in markaas agaasimihii dagaalanka argagixisada ee dalka Mareykanka oo dhawaan xilka iska casilay ee Donald Trump xilka culus u dhiibay inuu yiri memorandum of understanding-kii waa soo gabagaboobay haatan waxaynu ka haynaa afka madaxweyne Donald Trump heshiiskii u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan waa soo gabagaboobay waxa uu yiri is over waa dhamaaday waa laga guuray waxa uu intaas ku daray markaas inuu Donald Trump soo rogaal celin doono oo sameyn doono waxa uu jecel yahay inuu sameeyo waxa uu ugu jecel yahay inuu sameeyo oo ah markaas inuu dowladda dalka Iiraan oo argagixiso ku tilmaamay inuu dhulka dhigo in ka badan 80 jeer ayuu yiri Iiraan waa burburinaya marka kanu kaas waxba kama duwana laakiin hadalka culays kale waxa uu yahay memorandum of understanding-kii waa soo gabagaboobay ayuu yiri waxa aan qabsanayaa oo ku duulaya ayuu yiri ku hanjabay jasiiradda caanka ee Cook Island ee lafdhabarta dhaqaalaha dowladda dalka Iiraan u ah Iiraan ayaa waxay uga jawaabtay si aysan weligeed uga jawaabinin goordhow ayaanu imaan doonaa haddaba haddii ay soo dhamaatay waxa muuqata Iiraan iyo Mareykanku inay midyaha isku soo faysanayaan lana rajeynaya sida khubaradu ay leedahay caawa waa hameenka ugu cuslaa ee duqeyntaas oo ay dhacayso xilli berrito oo khamiisa aaskii qaran ee Ayatollah Ali Khamenei loo joogo Iiraanna ay leedahay aaskaas iyo indhaha caalamka waxa la rabaa in wax kale lagu mashquuliyo oo news headline-ka la bedelo ayay Iiraan leedahay haddaba daawadayaal
arrintaas ayaa jirtay dib ayaan ogaga imaan doonaa. Cabaas Caraaji waxa uu yidhi balse marka hore waxaan rabaa inaan ku hormaro dalka Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo markaa shirkiisa u gabagabeeyey ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay qortay warbixintan kooban oo ay leedahay markaas madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka muujiyey madaxweynaha dalka Turkiga ayaa muujiyey rajo weyn markaa in laga iibin doono sida Donald Trump uu sheegay videoga idinkaga soo daynay in markaa diyaaradaha F-35 uu gacanta ku dhigi doono taas oo Netanyahu uu sheegay balance of power bariga dhexe inuu isbedelayo oo Mareykan Iran Israel meeshii hawada dagaalka cirka iyadoo ugu sareysay diyaaradahan oo Turkiga uu gacanta ku dhigo isbedel weyn ayaa imaanaya waa la iska haybaysanayaa cid kaligeed waxay doonto sameynaysaa ma jirto ayaa halkaa ka muuqata. haddaba waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Turkigu inuu markaas rajada weyn uu muujiyey diyaaradaha inuu gacanta ku dhigi doono xilli markaas muddo dheer uu baadi goobayay isla mar ahaantaasna waxa uu sheegay Israa'iil inay ka soo horjeeditaanka Israa'iil arrintan ay diidan tahay aniga caalamkayga kumaba xusna ayuu yidhi waxba agteeda kama ahan ayuu ula jeedaa oo Erdogan iyo Netanyahu aad iyo aad ayay usii kala fogaanayaan maalinba maalinta ka dambaysa. waayahay waxaynu haddaba daawadayaal haatan aadaynaa markaas Hormuus waxa ka dhacay iyo weeraradii xalayta siday u dhaceen balse intaan u gudbinin 7 mirar ka hor waxaynu arkaynaa halkan in markaas European Aviation-ka ay markaas ay diyaaradaha ogaga digeen in ay markaa hawada sare ee dalka Ciraaq dalka Iran Ciraaq iyo Lebanon intaba markaas air space-kooda ay maraan laga bilaabo haatan 7 daqiiqo ka hor warkaas soo baxay ilaa iyo waliba 31 bisha August ee soo socota hawada Iran Lebanon iyo Ciraaq hamarinina ayaa lagu yiri. markii aviation-ku uu wargeliyo shirkadaha diyaaradaha ay wargeliyaan waxay hayaan xog abni oo biyo kama dhibcaana maxaa yeelay haddii kale digniinta lama soo diri lahayn. waxaynu oran karnaa waxa soo socda iyo webiga yaa weyn waqtiga oo kaliya ayaa sheegaya xilli Iran iyo Mareykanku ay caawa midiyaha isku soo faysanayaan. waxa Iran uga jawaabtay waynu arki doonaa laakiin warkaan war la yeelsan kara ma ahan waa war dhiilo weyn wata weeyaan oo haatan soo baxay markaas. Hormuus iyo xaaladeedu waa see weeraradii xalayse maxaynu kala soconaa oo wararkii u dambeeyay oo ka soo baxay ay markaas ay yihiin soo dhawaada daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan sharaf iyo karaama inoo tahay waqtigiina qaaliga. wahagaag Sky News-ka ayaa warbixintan diyaariyey warbixintan 2 qaybood ayaan uga dan leenahay. marka hore waxaynu xasuusanaa Iran inay muddo 24 saac gudaheeda 3 markab oo markaa Hormuus marayay ay weerartay weerarkiina ay markaas u bareedhay Iran kadib markii maraakiibtaasu ay diideen inay maraan dhabaha gaarka ee Iran ay markaas ay u calaamadaysay u astaamaysay dhinaca waqooyiga oo biyaha Iran xiga la marayo dhinaca galbeed koonfurtana raalaho koonfurta markaas Oman Road la yiraahdo ee Mareykanku uu rabana ay markaa maraakiibta ay Iran u diiday. haddaba labadaas saldhig ee military ay xalayta weerartay xilli Iran ay sheegatay 85 weerar inay qaaday. aan ku xasuusiyay daawada Mareykanku wuxuu yiri 80 meelood ayaan bartilmaameedsanay 3 daqiiqo kadib Iran waxay sheegtay 85 meelood inay duqeeyeen oo saldhigyada military ay kamid yihiin in yaroo kamid ah daawo Al Jafir in Bahrain with Ali Al Salam air base of the process by attacking American bases in Kuwait and Bahrain. And so they went for the Ali Al Salam air base in Kuwait, very important air base, and even more importantly, Al Jafir in Bahrain, which is the headquarters of the US Fifth Fleet. So that's where we are for now. What has been the effect of all of that on the Strait of Hormuz? Well, here is some of the tracking data of ships, and you can see. arba'ina daawadayaal warbixintan qaybtan aad si fiican u dhageysano. Trump iyo Peter Hegseth wasiirkiisa gaashaandhigga wasiirkiisa arrimaha dibadda waxay leeyihiin Hormuus annaga ayaa waxaynu doono ka sameynaa oo waxba yaraatee kala socdo ma lahan Iiraanna waa faramarantahay gacanta waxba uguma jirto. warbixintaanu arrintaas ayay si toos u beenaynaysaa waa kan
there, a few ships are on their way, but interestingly, the ships that are moving are mainly moving on the Iranian side of the operation. They're doing what the Iranians want them to do and go north towards Larak Island, and nothing is going up and down over the Musandam Peninsula, which is the Omani route, which the Americans want everyone to take. It's very interesting. Let's have another look at that. Keep your eye open for the Leila Vadina, which is one ship which was on its way out on the American route. There it is. There's the Leila Vadina, gets up to the point there, turns around, comes back, turns its transponders off. Just waayahay waxa uu yiri maraakiib yar inta badan maalintii 130 markab ayaa halkan isku weydaarata wuxuu yiri maraakiibta maraysa aad ayay u yar yihiin laakiin inta maraysa oo dhanu dhinaca Iran ayay marayaan dhinacii Mareykanku uu rabayna waa laga kala guuray cid maraysa malahan il gaar ku hay yiri Leila Vadina markabka la yiraahdo oo isku dayay dhinaca Mareykanka inuu maro markii uu soo dhawaadayna dib u soo noqday isla marxantaasna GPS-kiisii bakhtiistay oo raadeerkii bakhtiistay dibna u soo noqday macnaheedu waxay tahay markab maraya dhinaca dawladda dalka Mareykanku ay rabtaa ma jirto Iran ayaa loo hoggaansan yahay ayna marayaan in yar oo kale aan kugu daro waa kala daawo disappears from the radar. And you can see here that all the ships going in and out, none of them were using the American route. markab oo maraya dhabaha Mareykanku uu doonayay inay maraakiibtu maraan ma jirto kulligood dhinaca Iran ay marayaan oo Iran waxa ay tiraahdo ayaa halkan ka socda this point in time. Normally on an average day there's about 130 ships coming and going through the Strait of Hormuz. In the last few days, not normal, about 50, other days 40, other days 41 ships have come and gone. In the last 12 hours, it looks like 20 ships have come and gone. And you can see that all of those who are coming in and out are doing what the Iranians want, not what the Americans want. So this material shows us, at the moment, the Iranians are more in control of the Strait of Hormuz than the Americans are. And that matters in terms of what happened. Controlka Strait of Hormuz waxa gacanta ku haya Iran Mareykanka waxba gacanta ugu jiraan ninkaanu Iran lama jiro waa Professor Michael Clark waa nin Ingiriisa jaamacadaha wax ka dhiga aad looga faaloodo arrimaha ammaanka caalamka khabiir ah aadna loo ixtiraamo weeye ninka warkaas soo gudbinaya iyo waliba telefishinka Sky-ga mar kale waa kan wuxuu yiri arrintaas waa muhiim next, because all of this is about the legitimate route. Again, the Iranians say that everybody should use the northern route, somewhere around Larak Island, and go out that way. The Americans say this is the route that's safe, we patrol it, we keep everybody safe on this route, but obviously not safe enough, and this is the route around the Musandam Peninsula. At base, this is an argument about which is the legitimate route, but of course politically, it's all about whether the Iranians have got a right to control the waterway that they never. Why? Intaas waxa rabeen halkaas soo baxo waxaynu ogaanay Strait of Hormuz waxa ka jira iyo xaaladdu meesha ay marayso weeraradii xalay Mareykanku ay qaadeen ee isdaba joogga ahaa weeraradii xalay Mareykanku ay qaadeen isdaba joogga ahaa ayaa daawada waxa lagu sheegay in markaas sida dawladda dalka Iran ayada laftigeedu ay sheeganayso warbaahinteedana haatan ku cad in markaas 8 askari laga dilay 8 askari ayaa laga dilay xalayto dawladda dalka Iran xagee lagu dilay see loo dilay waatan wakaaladda wararka ee Reuters oo markaas ayadu xiganaysa iyo waliba Al Jazeera inta waa xiganaya markaas warbaahinta afka dawladda dalka Iran ku hadasha 8 askari ayaa duqeyntii xalayto lagu dilay sida warbaahinta Iran ay sheegtay isla mar ahaantaasna dhinaca galbeedka oo ah meeshan idinkaga soo waranay duqeymo xalayta ay ka dhaceen oo markaas Sirik Island ay ka mid tahay oo meesha la yiraahdo Bandar Abbas ay ka mid tahay iyo Busheira waxaasoo dhan waxay ku taxan yihiin markaas xeebta ayay ku taxan yihiin ayaa lagu dilay ciidamadan ka tirsanaa markaas ciidamada Navy-ga dalka Iran iyo waliba kuwa difaaca cirka Iran ayaa sheegatay 8 qof in laga dilay wararkan wuxuu ku soo aadayaa xilli midyaha la isku soo fiirsanayo anytime now la dagaalkaas uu qarxi doono oo Mareykanka iyo Iran inay caawa weerar iyo weerar celis ka dhacayo ayaa loo badanayaa 85% laakiin waqtiga ayaa macalina haddii ay dhacdo rabbina oo idmo iyo haddii dhici weydaba
brit somali t v waxay kusoo gudbin doontaa wararkii ugu dambeeyey iyo faallada dadka khubrada ee madaxa bannaan aan cidna la jirin si adigu aad xog kaamila oo buuxan aad u heshid waayahay haddii aynu halkaas yala joogno khiyaarta sharaftii karaamada leh oo aynu aadno dowladda dalka ruushka ayaa waxa ay dirtay wasiirkeeda arrimaha dibadda ee sergey lavrov ayay waxa ay u dirtay africa socdaalkiisan ayaa socdaal culays iyo miisaan leh wadamo fara badan ayuu soo maray oo uu ka mid yahay markaa dalka etoobiya haatan saaxil ayuu ku sugan yahay gaar ahaan niger ayuu caawa baryaya uu ku sugan yahay halkaas ayuu subaxii markaa ka socdaal tegaya haddaba waxa uu sheegay isbeddel weyn oo macnalada dowladda dalka ruushku inay markaa ka wado africa isla mar ahaantaasna socdaalkiisaana uu daaran yahay isbeddel dhinaca siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha intaba si kale haddaanu idhaahno ruushku waxa uu doonayaa saamaynta ugu weyn inuu ku yeesho africa oo markaas sida shiinaha oo kale uu tillaabooyinkaas waaweyn ugu qaado ujeeddadii hadafkiisuna waxay tahay in markaas maraykanka iyo xulufadiisa ay markaa africa ay kaga bartaan dhinaca siyaasadda dhinaca militariga iyo dhinaca saamaynta africa resource fara badan ayay haysataa xilli la doonaya ibrahim traore iyo markaa dowladdiisa in la fashilo iyo markaas mali iyo niger saddexdan wadan oo isbiirsaday kooxa argagixisa ah oo arxanlaawayaal ah iyo markaas siyaasadda wadamadaas faragelin weyn lagu hayo ayuu kusoo beegmayaa socdaalkiisa waxauna sheegay ruushka in lagu tashtana ay tahay uuna yahay dowlad la isku halayn karo oo aan dalalkan aan faragelinaynin siyaasadooda laakiin raba inay markaas wax wada qabsi iyo isfahan iyo wada shaqayn labada wadamadaba ay dan guud ugu jirta inay sameeyaan marka sergey lavrov in loo diro oo aan loo dirin junior minister waa arrin aad iyo aad u weyn arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli ibrahim traore saxaafadda reer galbeedku ay aad iyo aad ugu kacsan tahay isla mar ahaantaasna si gaar ah dowladda dalka faransiiska oo meesha laga soo eriyey ay il gaara ugu hayso commandos ciidamo ah oo dowladda dalka ruushkana ay joogaan oo cirka iyo dhulkaba ka caawinaya siday markaa ammaankooda ay u sugi lahaayeen marka dowladda dalka ruushku ayadaa u yeeri jirtay madaxda africa markii hore laakiin haatan si ka duwan ayay u dhaqmaysaa oo markaa ay doonayso inay iyaduna danaheeda ay ku xaqiijiso dowladahana ay markaa garab ay ku siiso meeshay caga dhigato waynu arki doonaa iyo socdaalkiisa wixii kasoo baxay haatan waxaynu aadaynaa qodobka weyn ee markaas iyo cabaas caraaji markii donald trump uu sheegay warkii haatan idiin soo gudbino barnaamijkeena aan ku bilownay in gebi ahaanba dowladda dalka iiraan uu burburinayo oo cagta uu marinayo ayuu waxa uu sheegay markaas luqadda noocaas oo kale ah qariban aan loo aaba yeelinin marin habaabka ay ku tilmaamayso iyo qarkadhac saxaafadda dowladda dalka iiraan inaysan markaas aysan dowladda dalka iiraan ee faca weyn ee taariikhda weyn leh aysan waxba u dhimaynin isla mar ahaantaana dowladda dalka iiraan hadallada noocaas oo kale ah ee gafka aysan markaas aysan ogaga jawaabaynin kuwa ayaga u dhigma marka wuxuu liidaya hadalka donald trump laakiin waxa uu yidhi annagu waxaynu kaga jawaabaynaa ficil ayaanu kaga jawaabaynaa oo aan markaa haba yaraatee wax cabsi ah ayaynan lahayn ayaan nooga jawaabaynaa cabaas caraaji inta badan sidaa uma hadlo nin degan ayaa lagu tiriyaa oo diblomaasiya laakiin waxaa muuqata inuu seefta galka kala baxay laakiin waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday warbixintan iiraan ka soo baxday ibrahim ra'iisi oo ah markaas afhayeenka baarlamaanka dowladda dalka iiraan iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba amniga qaranka dowladda dalka iiraan shaqooyin fara badan ayuu isku hayaa waxa uuna yidhi markii donald trump uu yidhi cock island ayaanu qabsanaynaa ayuu waxa uu yidhi hal askari oo ka mida ciidamada dowladda dalka maraykanku dib ayagoo nool ugu noqon maayaan dalkoodii
ciidamada keenaysaa qabsanaya Cook Island soo maahan askari qura inuusan ka noqon anaguna kaa ballan qaadayna bartiisa twitterka ayuu qoraalkan soo dhigay waana kan haatan aljazeera xiganayso oo ay xiganayso warbaahinta kale sida Reuters iyo weliba warbaahinta caalamku ay tabinayso idinka reer Brit Somali TV-na aynu markaa idinla wadaagayno oo haddii aad isku daydaan inaad dalkeena qabsataan meel yar oo ka mid ah Cook Island oo lafdhabarteena iska daaya askari qura dib u noqonaya isagoo nool haba yaraatee ma jirto arrintan ayaa imaanaysa markii Donald Trump uu ka yiri sidaa shirkii NATO meesha u dambaysa eeg wuxuu yiri come on we are waiting for you soo dhaqsada oo soo degdega annagu idinka aynu sugayna bal cagaha soo dhiga haddaad run sheegaysaan marka maadaama memorandum of understandingkii uu burburay sida Trump uu sheegay Iiraanna ay leedahay askari idinkama reebayno dadka Maraykankana aysan appetite u haynin dagaal kale oo ciidamo fara badan lagu geeyo gudaha dalka dagaal bariga dhexe lagu geeyo horey Ciraaq ayaa dalsi looga bartay Afghanistan ayaanu ognahay sidaas awgeed shacabka Maraykanku dooni maayaan arrintaas inay dhacdo Donald Trumpna Cook Island wuu kusoo duuli karaa ciidamo tababaran oo iliida waa la geyn karaa laakiin ma sii joogi karaan maxaa yeelay jasiiraddu waa meel yar oo go'doona in fact waxa wanaagsan in aan markaas hal mar isha idiin saaro jasiiraddan meesha ay ku taalla iyo inta ay la eg tahay iyo warkan meesha uu daaran yahay ee markaas go'doon in ay gelin doonaan ciidamadaas oo go'doon gala oo cid soo gurmato waaya oo saad u keenta iyo dhaawac ama dhimasho soo gaadha macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay ayaa leeyahay in la isku baaba'ayo oo dowladda dalka Maraykanku ay ku khasbanaanayso markaas in ay dagaal weyn ay soo gasho waa kan haddaba gaadaawade Cook Island haddaba aynu isla eegna inta ay la eg tahay iyo muhiimadda ay u leedahay dowladda dalka Iiraan halkaan oo ciidan la keeno dhibaatada ka dhalan karta waa mid aan la soo koobi karaynin ay leeyihiin so that is Cook Island meesha dhexda ah ee haatan inoo muuqato weey intaa yar weey haddii aad si fiican u eegtid maadaama ay halkaa ku taalo meesha ugu dhow marka Iiraan laga reebo Bushayra wada jeedaan oo meeshii xalay la duqeeyay dhulkaana dhawaantii xalay la duqeeyay ilaa iyo Bandar Abbas oo halkaana ilaa iyo Qashim Island intaasoo dhan waa meelihii xalayta Maraykanku uu duqeynayay now halkan haddii ay yimaadaan waxa ay kaga duwan tahay waxay tahay waa meel go'doon ah meesha ugu dhowna waa Iiraan marka Iiraan inay halkan ka weerarto xuduudda uma baahna waxaa la leeyahay waddanka bartankiisa ayay drones ka soo diri kartaa gantaalo ka soo diri kartaa oy ku weerari kartaa ciidamadan waxay u baahan yihiin in loo yimaado in Kuwait laga yimaado oo dalalka dariska meesha ugu dhow ah Maraykankuna military base uu ku leeyahay kii haatan la weeraray oo aynu arkaynay ah marka halkan wixii soo mara Iiraan waa u jeedaa haddii laga yimaado dalka Bahrain oo halkan ah waddadu waa kasii dheer tahay oo in badan oo kale ayuu soo soconayaa taasna fursad waxay Iiraan u siinaysaa markay soo dhaqaaqaan in ay markaas soo weerarto dhulkan dhow dhulka Iiraan weeye haatan aynu u jeedno intaas la eg halkaa laga soo bilaabo ilaa iyo markaa halkaa Iiraan weeyaan marka haddii ay Qatar Bahrain aado halkaas ayay noqonaysaa hadday Imaaraadka noqoto oo la leeyahay uma badna Imaaraadku inuu arrintan ka qayb qaatana Imaaraadku halkaas ayuu ku yaalaa marka intaasoo dhan ayay Iiraan arkaysaa weerarkuna markaas inuu sii bato ayay keenaysaa taasoo sababi karta ayaa leeyahay dhimasho iyo dhaawac iyo ciidamadaasoo go'doon gala waxaan rabaa inaad sawiratid haddii ay dhacdo ciidamadii oo go'doon galay ama Iiraan ay qabsatay mid ama laba ka mid ah newska caalamka oo dhan ayaa isbedelaya arrintan hore waxay ugu dhacday 1979kii Jimmy Carter madaxweynihii hore ee Maraykanka ayay ku dhacday oo markaas doonayay xilli inuu mar labaad u tartamo laakiin arrinta Iiraan iyo qabsashadii laga qabsaday dadka Maraykanka ah ayaa soo gabagabaysay siyaasaddiisii iyo mustaqbalkiisii siyaasadeed waxaa leeyahay Donald Trump oo wax yar ay u dhiman yihiin 2 sano kale iyo bar ay u dhiman yihiin arrintan ma soo gabagabayn doontaa haddii laga qabsado waxaan shaki ku jirinin in labada aqalna uu markaa ku guul daraysanayo
xisbiga democratka oo aad uga soo horjeeda ee mucaaradkana ay impeachment ku sameynayaan horena dhowr iyo 30 dembi maxkamado ay ku heshay xilli Epstein file uu diiday inuu banaanka soo dhigo oo markaas uu ballan qaaday marka isha waxa lagu hayaa halkan waxa ka dhacaya caawa iyo saacadaha soo socda suurtagal inay caawa dhacaan sida la leeyahay iyo inaysan dhicin intaba wax walba waa suurtagal laakiin markaad eegtay sida la isugu hanjabayo iyo meesha xaaladdu ay marayso caawa aad iyo aad ay xiisadu u kacsan tahay xaqiiqatan meeshay caga dhiganaysana cid garan kartaa ma jirto hadaawanaysan Brit Somali TV daawadayaal iyo wararkii ugu dambeeyay caawa iyo meesha xaaladdu ay marayso intaas ayaynu jecelnahay inaanu xilligan barnaamijkeena ku soo gabagabayno inta aynu dib ugu kulmi doono kanoo kale haddii Allah uu jal yiraahdo iyo wararka caalamka waxaanu khiyaaradan leenahay waqti waa idin wacnaado waan idinkaga mahadcelinaa waqtigiina qaaliga ah